والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينياشي هوري رئيسول وزاره قدومياشي وزير رضا حلبان رضا ولالها كسو قيب قالي كلن كان دعاء اللي وسمي ولاشين آمنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ورنتي جيري حنون بدن أنا كشخصي أهان آمنة وحنا دحمري أرنتي إجران تهليل والله ساعتين سيدي كوب الله بطي إلا هذا ماشى مريس سان كبلن قاضي maalintii ugu horeysay ay yimaadeen Aamina iyo igraan hooyadeed iyo ugaaskaba waxaan ballan qaaday una sheegay inaan arintaas god u galayo hadii ay igaarsiiso ballan ayaana waagaas qaaday walina waa ku taaganahay laakiin wala igaaga baxay dad badan ayaa igaaga baxay dagaalkaas markaan bilaabay dad badan ayaa ku soo gabagabeeyay oo ragga kale celiya anigii madaxweyne Farmaajo ma ahayn targetkeena madaxweyne Farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii falkaas geystay igraan tahliil oo ay Aamina cadaalad u raadinaysay in maxkamad la saaro laakiin waa la siyaasadeeyay mana ka harayno hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo waxaan kaloo aaminsanahay sidaan u aaminsanahay in aan cawadaba dhiman karo in Aamina gacanta ka gardaran ay dishay ee ahayd gacantii igraan ka dambeysay sababtaan saas u leeyahay wax kale maahan walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhaweed uu soo wacay oo iskhilaafeen gudoomiyaha siid ee Hirshabelle kaasoo doonayay in kuraasta ay u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo markuu walaalkii madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo una ila soo xiriiray garabna aan ku siiyay in ninkaas la bedelo waxa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee Aamina ay kamid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto ilaahay iga sareeyo saacad ka yar kadib message ayaa ii soo dhacay wahaya oo leeyahay kursigaas Aamina furitaanka afurteen Bob iyo ujeeda u leedahay laakiin waa waxa ka hesho Cali Guudlaawe iyo reer Hirshabelle waa iska celinaynaa adigana waa iska ka celinaa wahaya message waa u dhimana waan u dhiman doonaa hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo Aamina wala sheegad dadkii ka dambeeyay ilaahay waxaan ka baryayaa waa isku dayay xoog iyo awood intaan leeyahay inaan wax kaga qabto laakiin waa ka guulaysanayna hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo waa nool yihiin kuwii qarashka ku bixiyay ninkii Aamina isku qarxiyay ee ka soo waday dhulkaad aragteen ee keenay hiiraan beledweyne waa nool yihiin kuwii abaabulay waa nool yihiin kuwii lacagta ku bixiyay laakiin insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala uu ka soo saarayaa xaqa darada ay galeen hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo mana ka harayno intaan noolahay waxaan idin sheegayaa xilliga doorashada lagu jiraa waxaad moodaa inaan diyaar loo ahayn doorashada dadka qaarkood ay taagan tahay cadkeygii oo ku cun ama ku ciiday laakiin waxaan ballan qaadnay jadwalka ay fiid soo saartay oo uu dhigayo 14 Abriil ama waqtigaas ama ka hor inaan soo gabagabayno dhaarinta baarlamaanka hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo markaas ayaan guulaysan doonaa inta dambiga gashayna markaas aan la xisaabtami doonaa hadduu Allah subhanahu wa ta'ala idmo waxaan idin sheegayaa xaqaas oo ah inaan ka mara dhalino ka
rooble ra'iisul wasaare ahaan Allah subxaanahu wa tacaala hortiisa idinkaga qiraya waa iga go-an tahay waana u dhimanayaa cid kastoo isku daydo inay handado cawadaba raalli laga meel inaad soo baxo marka mar horaan dhintay laakiin waa noolahay insha allah waana guulaysanayna. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.